kalfadhigan maanta oo ay soo xaadireen badiba xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland isla markaana uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa hor yimid golahaasi wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaraddaasi waxaanay golaha hor keeneen daraska miisaaniyad sanadeedka 2021 wasiir Saad Cali Shire ayaa golaha wakiilada ka hor akhriyay nuxurka daraska miisaaniyad sanadeedka 2021 waxyaabaha ay xambaarsan tahay iyo waliba qorshayaasha lagu fulin doono miisaaniyadaasi guud ahaan waxay ka kooban tahay 6 madax bay ka kooban tahay madaxa ugu horeeya waxa weeye waa miisaaniyadda dawladda dhexe shanta madax ee kale waxay ka kooban yihiin miisaaniyadda dawladda hoose miisaaniyadda hay'adaha madaxa bannaan miisaaniyadda sanduuqa loo yaqaan SDF-ta ee uu mataqaana maalgeliyo ay maalgeliso dawladda Ingiriiska iyo dawladda Danish-ka waxay inta jireen mashaariicda World Bank uu maalgeliyo waxa uu dambeeyay mashruuca JPLG ee maamul daadejinta marka la soo wada geeyo 6 madax miisaaniyadda sanadka soo socda 2021 waxay noqonaysaa 2 trilyan 882 waxaana tii hore ka badnaanaysaa 4.8 haddii aynu gudubno bogga afraad oo aynu isweydiino dakhligu xagee buu ka imanayaa dakhliga aynu odorosnay ee miisaaniyadda ku jira xaguu ka imanayaa shaxdan ayaa inoo tilmaamaysa dakhligu wuxuu ka imanayaa waxaan isu koobayaa marka hore miisaaniyadda dawladda dhexe wuxuu ka imanayaa cashuuraha customka laga qaado oo runtii ah boqolkiiba 50.4 miisaaniyadda guud ee dawladda dhexe wuxuu kaloo ka imanayaa cashuurta iibka oo iyaduna boqolkiiba 3.30 saa ku aragtaan shaxda wuxuu kaloo ka imanayaa cashuurta mushaharka boqolkiiba 5 wuxuu kaloo ka imanayaa cashuurta macaashka oo boqolkiiba 2 kaliya cashuuraha kale oo qiyaastii noqonaya 4.4 iyo dakhliga kale oo ah 5.3 marka la isu geeyo cashuurta ka imanaysa 6 weeye waxay noqonaysaa miisaaniyadda dawladda dhexe oo ah sida markii hore baan tilmaamay 2 trilyan 102 bilyan oo shilinka Soomaaliland mudane gudoomiye sanadkani wuxuu ahaa sanad adag buu ahaa waxa dhaqaalaha soo gaaray hantaaqooyin badan oo saameeyay miisaaniyadda sanadkan iyo miisaaniyadda sanadka soo socdaba hantaaqooyinka waxa kamid ahaa xanuunkii COVID-19 ayixii nagu habsaday xayiraadii xajka la saaray xayiraadii isku socodka caalamka ee isku socodkii la saaray iyo xaaladda Itoobiya oo dhaqaale ahaan aad ugu xidhanahay marka shanta shayba saameyn ayay ku yeesheen dhaqaalaheena sanadkan aynu ku jiro iyo ka soo socdaba Ali Maxamed Xuseen Ali Wacays telefishinka Saab Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom